Soomaaliya oo ah waddan leh kheyraad dabiici ah waxaa lagu arkaa xayawaan duureed aad u fara badan kuwaas oo isugu jira dameer farow, gari, goranyo, libaax, maroodi, diir, shabeel, yaxaas, biciid iyo kuwa kale oo badan oo halkan lagu soo koobi karin. waxaa jirta meelo qaarkood oo Soomaaliya ka mid ah dadku ku nool iyo xayawaanka marka la isbarbar dhigo waxaa badnaa xayawaanka 3 laab ama 3 jibaar. Soomaaliya dhulkeeda waxaa aad loogu arkaa biyaha oo meel kasta yaala. Soomaaliya weli ma leh gaadiidka lagu gudbo webiyada ama buundooyin badan. dantu waxay qasabtay dadka inay samaystaan doonyo ama doomooyin xarig intay labada dhinac ee webiga ku xiraan ayay ku gudbi jireen. doonta oo loogu gudbi jiray webiga dhankiisa kale ama gadiga kale. haddaba dadku waxay samaysteen kanaalo ama durdur si ay uga faa'iidaystaan webiga waxay ku soo leexin jireen beertooda. dadka ku nool Soomaaliya 3 meelood markii loo dhigo meel ahaan waa beeraley. runtii wax soo saarka Soomaalida aad ayuu u weyn yahay. mooska ama muuska oo ah waxyaalaha ay Soomaalidu aadka u beeraan kuwooda ugu qiimaha weyn. dadkan ka shaqeynaya beeraha mooska ee ku yaal shabeellooyinka waa dad si adag u shaqeeya. mararka qaar waxaa dhacda inay 17 saacadood shaqeeyaan maalintii ayagoo qaadanaya tababaro sida loo abuuro beeraha iyo sida loo xanaaneeyo, weliba sida loo ogaado waqtiga uu mooska bislaaday. Talyaaniga mar uu cilmi baaris sameeyay waxa uu sheegay mooska ugu macaan adduunka inuu yahay kan Soomaaliya. mooskan Soomaaliya laga soo saaro waxaa dhoofiya wadamo kala duwan, waxaase ugu badan waddanka Talyaaniga oo 80% isagaa dhoofiya, wuxuuna waddanka ku leeyahay shirkado badan oo dhoofin. dhibaatooyinka ugu weyn ee soo food saara shirkadaha Talyaaniga iyo Soomaalida waxay ahaayeen Soomaaliya oo aanan lahayn dekad caalami oo laga dhoofiyo mooska. danta waxay ku qasbi jirtay inay mooska ku qaadaan doomo yaryar si ay u gaadhsiiyaan maraakiibta waaweyn ee badda bartankeeda jooga, waayo muusku hadduuna talaajad helin wuu xumaanayaa ama halaabayaa. shirkadda ugu muhiimsan ee beeraha waddanka Soomaaliya waa tan uu sameeyey Luigi di Savoia. shirkaddan oo abuurta soona saarta waxay dhoofisaa qudaar aad u kala duwan. qudaarta oo ka mid ah sida babaayga, muuska, cambaha, canabka, liinta, bambeelmada, rumaanka iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin. shirkaddan aad arkaysaan waxaa ka shaqeeya 100 qof oo Talyaani ah iyo 5,000 oo Soomaali ah. waxyaalaha kale ee Soomaaliya soo saarto waxaa ugu badan suufka ama cudbiga, hadba kaad u taqaanaan, iyadoo shaqaalaha ka shaqeeya beerta cudbiga ama suufka ay u badan yihiin haween. warshadda gaar ahaan meesha suufka lagu kala bixbixiyo waxaa ka shaqeeya gabdho yaryar oo aad u qurqurxoon. shaqo kasta oo meesha ka socotana ayaga ayaa ka mas'uul ah, taasoo ku tusaysa dumarka Soomaaliyeed dhismaha waddanka inay qayb weyn ka qaateen. waddamada Islaamka haddii loo fiiriyo haweenka Soomaaliyeed waa kuwa ugu madax bannaan ama ugu xorriyad weyn oo qabta shaqo kasta. shaqooyinka ay qabtaan dumarka Soomaaliyeed oo ah kala bixinta iyo habaynta suufka waa shaqooyinka ugu dhibka badan ama ugu adag ee la qabto, waayo waqti dheer ayay ku qaadataa safaynta suufka. warshadaha Talyaaniga uu ka dhisay waddanka Soomaaliya waxaa ka mid ah warshadda sonkorta. sidaad arkaysaanba shaqaalaha waxay ka shaqaynayaan beerihii qasabka. warshaddan oo laga dhisay tuulada la yiraahdo Duuka dalla Abruzzi waa gobolka maanta loo yaqaano gobolka Jowhar. Jowhar waxay ku taallay meel aad muhiim u ah. dhulka wuxuu caan ku ahaa qasabka, waayo waxaa mari jiray webigii Shabeelle. 10kii sano ee Soomaaliya Talyaaniga xukumayay wax soo saarka warshadaha iyo dhoofinta sonkorta waxay noqotay 100%. dad aad u fara badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqeynaya warshaddan. Talyaaniga waxay aad ugu caawiyeen Soomaaliya korista xoolaha la dhaqdo
kaasoo gaadhay 1,000,000 iyo bar oo lo ah iyo 2 milyan oo geel ah. Soomaaliya waxay ku dhaweyd inay noqoto wadamada Afrika ugu xoolaha badan. Reer miyiga ama xoolo dhaqatada waa dad aan aqoonin qorista ama akhrista. Sharciga ay isku maamulaanna waa kan qabiilka oo saameyn weyn ku leh dhaqanka Soomaalida. Iyadoo la ogaaday in wadanka xooluhu aad ugu badan yihiin ayaa Talyaaniga wuxuu isku dayay inuu furo warshad hilibka. waxaa loo sameeyay xoolaha meel lagu qalo ama lagu gowraco, iyadoo la ansixiyay xoolaha birta lagu qalayo in lagu qoro bisinka si ay markaa xalaal u noqdaan. waayo dadka Soomaalida ah shaki ayaa uga jiray hilibka gasacadaysan ama daasadaha ku jira, waayo waxay u barteen hilib fresh ah. maqaarka ama haraga laga bixiyo xoolaha wuxuu ahaa mid aad u muhiim ah ama u qiimo badan. sidaa darteed haraga xoolaha ama maqaarka xoolaha qaar waa la dhoofin jiray, qaarna Soomaaliya ayaa lagu isticmaali jiray. haraga ugu qaalisan wuxuu ahaa kan libaaxa iyo shabeelka oo inta badan loo dhoofin jiray dalka Talyaaniga, taasoo lacag adag ka soo gali jirtay wadanka Soomaaliya. dadka Talyaaniga ah ee ku nool magaalada Muqdisho waxaa inta badan lagu arkaa maalmaha Axadda ah agagaarka kaniisadda weyn. Soomaaliya waa wadan muslim ah 100%. masaajidyo badan ayaa ku yaala Muqdisho. masaajidka ugu weyn ee Muqdisho ku yaal dadka ay isugu yimaadaan maalinta Jimcaha waa masaajid caan ah oo la yiraahdo 4 rukun. 2 sano waqti haatan laga joogo, baarlamaanka Soomaaliya wuxuu soo saaray sharci ah in haweenka guryahooda aysan ka bixi karin wixii ka dambeeya 6 galabnimo. tan labaad oo ah dumarka oo aan loo ogolayn dariishada ama daaqada inay istaagaan. waxaa Muqdisho dhawaan ka furmaya safaarado aad u badan, kuwaas oo kala ah safaaradda Faransiiska, ta Ingiriiska, Mareykanka, Yaman, Masaarida iyo Itoobiyaanka, kuwaasoo ogaaday in Soomaaliya ay tahay wadan nabad ah. Muqdisho markaad ka eegto dhinaca dhismaha waxaad arkaysaa in ay ka socdaan dhismooyin aad u fara badan. waqtigan waxaa lagu qiyaasaa in Muqdisho ay ku nool yihiin ilaa iyo 100,000 oo qofood. telefishinka Talyaaniga ah ee la yiraahdo RAI wuxuu keenay Muqdisho qalabka raadiyaha, kaasoo sahashay in wadanka intiisa badan laga maqlo raadiyo, iyadoo ahayd markii ugu horeysay ee dadka Soomaaliyeed ay raadiyo dhageystaan. Soomaaliya oo aan haysan luqad la qoro inay ku hadlaan mooyaane. waxaan waraysi la yeelanay 2 wiil oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah, kuwaasoo dhawaan ka soo laabtay dalka Talyaaniga iyagoo waxbarasho ku soo dhamaystay. wuxuu ku jawaabay run ahaantii Soomaalidu waa dad dhaqan wanaagsan leh. waxaan leenahay dhul kheyraad badan ku jira. tan labaad wadankeena wuxuu noqon doonaa runtii wadan horumara, dadkiisana ay aad isku jecel yihiin. Soomaaliya hadday sidan ku sii socotana waxay noqon doontaa dawladda Afrika ugu hodansan. su-aashii labaad aan weydiino waxay ahayd horumarka wadanka ayaa looga baahan yahay. runtii horumarka wadanka waa inay dhalinyarada wax bartaan. Soomaalida waxay aad u yaqaanaan sida loo gabiyo. hadalladooda waa murti, mahmaahadana aad ayay u isticmaalaan. mahmaahayada Soomaalida waxaa ka mid ah Soomaalida been way sheegaan laakiin been kuma mahmaahaan. waxaana u malaynayaa adduunka inuuna jirin wadan mahmaahda caynka ah leh. gabaygana kol waa la isku caayaa, kolna waa la isku amaanaa, talana waa la isku siiyaa. qoys ilaa iyo qoys ayaa la isku gudbiyaa. waa maxay waxyaalaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya maanta u baahan tahay? siday ila tahay waxay u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay isu keenidda ummadda Soomaaliyeed. siday ila tahay taasoo la isugu keeni karayo mid kaliya waa inay qaataan Soomaalida go'aan ay u midaysan yihiin iyadoo cid kale soo dhexgelin. sidaa bay ila tahay aniga, waayo Soomaalida maanta waxay leeyihiin dad aqoon leh, marka uma baahna in la soo dhaxgalo. su-aasheeda afraad waxa weeyaan Talyaaniga Soomaalida wax ma u qabtay? Talyaaniga wax badan ayuu u qabtay Soomaaliya oo aan halkan lagu soo koobi karin. waxyaalaha uu inoo qabtay waxaa ka mid ah sida dhisidda kuleejooyinka, dugsiyada
isbitaalada, jidadka, goobaha isboortiga iyo weliba iyadoo uu u diray arday badan oo Soomaaliyeed waddankiisa Talyaaniga oo waxbarasho ay kusoo dhammaysteen. laakiin waxaasoo dhan waxaa inooga weyn in waddanku uu xornimo qaato. waxaan u baahannahay in xorriyad buuxda nala siiyo, waayo maanta waan isku filannahay, annagaa is wadi karna. waxaa waddanka ku nool rag badan oo aqoon lahoo caynkan oo kale ah iyo kuwa naga sarreeya oo Soomaaliyeed. marka dhaqaalo ama gargaar in la siiyo uma baahnin, waayo waxaan ugu filan khayraadka waddankeenna, annagaa soo saaranayna khayraadkeenna. marka madax bannaaniha nala siiyo iyo xorriyad weyn waa intaas muhiimadda. tan kale maana iloobin dhibaatooyinkii isticmaalka, laakiin haddaan Soomaali nahay waxaanu lagu yaqaanaa cafiska. gumaystayaasha waddankeenna qabsaday waxaa ka mid ah ama soo maray waddanka Ingiriiska, Faransiiska, Talyaanigiina. marka ujeeddadeennu waa xorriyad buuxda war iyo dhammaan. bangiyada Soomaaliya oo dhan waxaa gacanta ku haya shirkado Talyaani ah. Soomaalida inta badan lacag ma dhigtaan bangiga, laakiin ayaamahan dambe waxaad arkaysaa Soomaali badan oo bangiga lacag dhiganayaan ama bangiga koont ka furanayaan. taa waxaa u sababa Soomaalidii oo ilbaxnimadoodii iyo aqoontoodii hormartay. dhinaca diyaaradaha waxaa weli maamula shaqaale isugu jira Talyaani iyo Soomaali. duulimaadka toddobaadkiiba waa mar, iyadoo u duusha diyaaradda Muqdisho, Roma, Milano. iyo waxaa kaloo jira duulimaadyo ka shaqeeya Muqdisho, Kenya iyo South Africa. shaqooyinka laga qabto Soomaaliya oo dhan waxaa mas-uul ka ah dowladda Talyaaniga iyo qaramada midoobay. isbeddello aad u fara badan oo halkan lagu soo koobi karin ayaa ka dhacay dalka Soomaaliya. hadday sidan ku sii socotana waxaa laga yaabaa ilaa iyo 30 sano ee soo socota inay Soomaaliya lambarka koowaad ka gasho Afrika. waxyaalaha inta badan Muqdisho lagu arko waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada oo aad u sii fara badan. hal sano gudaheed ayaa waxaa lagu furay 119 dugsi hoose iyo dugsiyo habeenkii dadka waaweyn wax ku bartaan. dugsiyo diinta Islaamka lagu barto. waxaa kaloo jiray dugsi ay Soomaalida ay aad u jeclaayeen oo lagu barto karaaninimada. booliska Soomaaliya waxaa lagu tababaray dugsiyada qaaska ah ee booliska. tababaradaasoo qaatay waqti aad u dheer, waxaana la baray siday nabadda u sugi lahaayeen. halkani waa isbitaalka ugu weyn Soomaaliya. waqtigii Talyaaniga joogay wuxuu furay isbitaallo aad u fara badan iyo shaybaar. isbitaalkan waa isbitaalka ugu weyn Soomaaliya uguna caansan, waxaana la yidhaahaa isbitaal Martiini. wuxuu daweeyaa dad badan oo Soomaali ah oo markaa degan Muqdisho iyo nawaaxigeeda. isbitaalkana Martiini oo isugu jira qaybo badan, kuwaasoo kala ah dhinaca daweynta haweenka, carruurta, bukaan socodka, indhaha, cudurrada jirka iyo kuwa kale oo badan oo halkan lagu soo koobi karin. isbitaal Martiini waxaa yaala 600 oo sariirood. waxaa ka shaqeeya 50 dhaqaatiir ah oo u dhashay dalka Talyaaniga iyo dhowr qof oo Soomaali ah. waxaa shaqooyinka qabta nurses Soomaali ah. dhaqaatiirta Talyaaniga ee tababarka siiya Soomaalida waxay sheegeen dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad waxbarashada aad u jecel ugu soo jeeda, shaqadoodana had iyo goor ka soo baxa. qaramada midoobay waxay Soomaaliya ku caawiyeen $2 milyan oo doolarka Mareykanka ah si loogu dhiso isbitaal weyn, waayo magaalada Muqdisho dadkii baa ku soo badanaya. isbitaal Martiinina ma awoodo shicibka intaa la eg inuu qaado.
xisbiga ugu muhiimsan ee ku guulaystay doorashadii ugu dambeysay waxay ahaayeen xisbiga SYL ama xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo loo yaqaano leegada. gudoomiyaha SYL Maxamed Abuukar oo la hadlaya ururka wuxuu yiri waa in la isku wada keenaa dhulalka Soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga annagoo diyaar u ah dhulalkeena inaan ku soo ceshano si nabadgelyo ah. hadday taas suuroobi weydana waxaan ku dhaqaaqi doonaa sida markaa nala gudboon. waxaan aaminsanahay dhaqankeena iyo diinteena qaaliga ah inaan dhulkeena Soomaaliyeed soo ceshano waa waxaan xaq u leenahay maaha waxaan baryaynaa ayuu yiri. walaalayaal waxaan nahay dad isku diin isku dhaqan isku af ah cidna kala geyn karaysaana ma jirto. waa inaan nafteena u hurnaa dhulkeena hooyo cadowga naga haysto ayuu ku soo gabagabeeyay. waxaan kaloon waraysanay ama aan la hadalnay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaali weyn. hamigooda wuxuu ahaa dhulalka Soomaaliyeed ay kala qaybsadeen Faransiiska, Ingiriiska iyo Talyaaniga inay dib u soo ceshtaan. dhulalka oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Kenya la raaciyay iyo dhulka Soomaaliyeed ee Ogaadeniya oo Itoobiya la raaciyay. inaan dhulkeena Soomaaliyeed soo ceshano waa waxaan xaq u leenahay maaha waxaan baryaynaa ayuu yiri. tan kale wuxuu yiri luqadaha rasmiga ee Soomaalida ku hadlayaan waa inay noqdaan luqadda Carabiga ah ama wax lagu baranayo maadaama aynu nahay dad Islaam ah quraankan oo Carabi ku qoran yahay waa inaynu Carabiga baranaa. inta ku soo gabagabeeyay waxaa kaloo hadlay gudoomiyaha ururka shaqaalaha Cabdiqaadir Cali Boolay oo wuxuu yiri dhaqdhaqaaqa ururada Soomaalida wuxuu bilaabmay 1949 kaasoo ay bilaabeen dhalinyaro Soomaali ah si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka soo food saaraysa shaqaalaha Soomaaliyeed. 1952 waxaan qaadanay magaca ururka shaqaalaha midoobay ee Soomaaliya. sanada kadib ururka aad ayuu u fiday dad badan ayaa sanadaha ku soo biiray. kadibna waxaan mas'uul ka noqday shaqaale kala duwan sida shaqaalaha dekedaha, warshadaha, beeraha, kalluumaysiga iyo ganacsiga. waxaan kaloon ku biirnay ururka shaqaalaha adduunka kaasoo na siiyay aqoonsi aan aad ugu baahnayn. waxaan u diray 3 xubnood oo ururkan ka tirsan magaalada Kampala si ay aqoon kororsi ugu soo qaataan. waxaa kaloo jiray urur kaloo shaqaale ah madaxna uu yahay Cabdiqaadir Abuukar Mahdi. ururkaas oo la shaqeeya shaqaalaha waxgaradka ama professionalka ah ayagoo ku dhiirigelinaya dhalinyarada inay bartaan farsamada gacanta oo aad wadanka ugu baahan yahay. Cabdiqaadir wuxuu yiri waxaan aad u soo dhaweynaa dhalinyarada rabta inay bartaan farshaxanka iyo farsamooyinka kala duwan waayo wadankeena farsamooyinka aad ayuu ugu baahan yahay. kala shaqaalaha waan tababarnaa annagana shaqo siina shaqooyinka dhaqaale ahaan waxaa aad noogu gacan qabtay maamulayaasha futushaariyaha ayagoo noogu deeqay mashiinno iyo lacag. waxaad u jeedaan waa dhismaha baarlamaanka oo ay joogaan dadkii loo soo doortay oo ah 70 xubnood. 70ka xubnood 60 waxaa dooratay Soomaalida, 10ka soo hartayna waxaa loo kala qaybiyay 4 Talyaani ah, 4 Carab ah iyo 1 Bakistaan ah iyo 1 Hindi ah. waxaa hadlay wasiirka dastuurka Maxamed Sheekh Gabyow wuxuu hadalkiisa ku bilaabay dastuurka Soomaaliya wuxuu soo bandhigayaa 2 arrimood oo muhiim ah. wuxuu sheegayaa jirista jamhuuriyadda Soomaaliya, xuquuqda qofka Soomaaliga iyo madax banaanida wadanka Soomaaliya, diinta Islaamka inay tahay diinta wadanka, calanka Soomaaliya inuu yahay midab buluug ah xidig 5 dhinac lehna bartanka kaga yaalo. muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay shaqo inuu helo, tan labaadna uu canshuur bixiyo si wadanka dhaqaalihiisa u kordho. difaaca dalka waa xuquuq saaran wadani walba. shaqada qaranka waxay qasab ku tahay wadani kasta. baarlamaankana dimuqraadiga ah qof walba xubin ka ah codkiisa si toos ah u dhiiban karaa. waxaan ka codsanaynaa xubnaha baarlamaanka inay shacabka Soomaaliyeed si cadaalad ah ugu shaqeeyaan. hamigeena waa inuu ahaado ka shaqaynta horumarka Soomaaliya. halkani waa gurigii dawladda xilligan oo ah xilli ay 4 sano dawladda jirto.
waxaa hadlaya ra-iisul wasaaraha oo ah cabdulaahi ciise. wuxuu noogu jawaabay 4 sano ayaan haysanaa xornimo oo aan nahay dowlad madax bannaan. waxaan waddanka u qabanay wax weyn oo la taaban karo. taa waxaa caddeyn u ah waddankeenna iyo dadkeenna oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay. waxaan ku rajo weynahay inay isbeddelo aad u fara badan yimaadaan. shicibka iyo dowladdaba dhiigooda waxaa ku jira qeyro wadaninimo. 10 sano maamulkii talyaaniga futushaariyo shaqaalaha qofka Soomaaliga ah waxaa ku kordhay 25%. talyaaniga waxyaabihii uu u dhoofiyey waxay gaadheen 7 milyaardi oo liira ah. waxaan arrimahan ka wareysanay Dr. Luigi Gasparri. su-aashii ugu horreysay oo ahayd waxay nooga sheeg isbeddelka dhaqaalaha Soomaaliya. waxa uu ku jawaabay Dr. Luigi: waxyaalo badan ayaa isbeddelay. waayo sanadka markuu ahaa 1950kii dhaqaalaha waddanka aad ayuu u hooseeyey, lacagtana way yarayd. waqti 10 sano dhexdeeda ah lacag badan ayaa la helay, dhaqaaluhuna wuu isbeddelay. su-aasha kale aan weydiinay waxay ahayd maxaa lagu sameeyaa lacagta maalgelinta ah ee talyaaniga uu keenay. waxa uu ku jawaabay lacagtaa wax badan ayaa lagu sameeyaa. waayo baarlamaanka sharci uu soo saaray 17 Febraayo wuxuu sheegayaa in la fududeeyo si loo horumariyo dhinaca beeraha sida muuska, suufka, hilibka iyo dhoofinta xoolaha nool. sidaa ayaa keentay in dhaqaalaha waddanka si degdeg ah ugu kordho. lacago kale hadday yimaadaanna ayuu yidhi waxaa dhici karta in dhaqaalaha waddanka uu aad u sii kordho. halkani waa Villa Soomaaliya. waxaa maanta jooga qofka mas-uulka ka ah maamulka talyaaniga ee futushaariyo. safiirka talyaaniga waa Mario Di Stefano. safiirka oo yidhi sanadahan soo socda Soomaaliya oo xor ah waxay xasuusanaysaa wanaaggii iyo saaxiibtinimadii ka dhexaysa iyaga iyo talyaaniga. qaas ahaan 10 sano oo talyaaniga mas-uul ka ahaa waddankan annagoo aad ugu faraxsan xornimadan. waxaan rajaynaynaa saaxiibtinimadeenna inay sii socon doonto waqti dheer, ayuu yidhi safiirkii. booliska Soomaaliya oo isku diyaarinaya dabaaldegga xorriyadda. waxaad kalood arkaysaa oo indhahaaga soo jiidanaya dad aad u fara badan oo Soomaali ah oo aad ugu faraxsan waayaha cusub ee u dilaacay. runtii talyaaniga aad ayuu ula yaabay ula dhacay dadkan Soomaaliyeed qiirada iyo wadaninimada ku jirta. farxadda looma kala harin. dhalinyaro, odayaal, dumar iyo caruur ayaa meel walba ku dabaaldegaya. shicibka markaad eegto waxaad ka dareemaysaa inay aad isku jecel yihiin. dadka wejigoodana waxaa ka muuqda farxad aan la koobi karin. وما للعرض عمرنا قسميو